nimankii waaweynaa ee baarlamaanka ahaa ee aynu soo dooranay ee nin walba codkiisa lagu soo doortay ku soo baxay ee aynu ugu talagalnay inay u shaqeeyaan qarankan inay u shaqeeyaan gobollada iyo degmooyinka inay u shaqeeyaan Soomaaliland meel kastaba wixii ay ku hana qaadi lahayd ama ay hore ugu socon lahayd xeera inay sameeyaan iyagu ayaa shalatay waxay noo muuqatay sidii golo kale xeerka sameeynaya inay xeerkii iyagu ay wax ka bedeliyo wax ku daris labadaba ku sameyn lahaayeen ka dareereen shalay waxay hayeen xeerkii maamulka gobollada iyo degmooyinka golayaal deegaan oo la soo doorto ka cod badan iyaga ayaa ka mid ahaa waxyaalaha ay ka hadlayeen ee ay wax ka bedelkii wax ku darkaba sameynayeen golayaashii deegaanka xeerka 100 iyo dhowr qodob bay ku soo dareen maanta markii ay taagneyd in iyaga xeerkoodii miiska saaran yahay inay ka dareeraan oo yiraahdaan saddexdii xusbi qaran baa heshiiyay saddexda xusbi qaran inay heshiiyaan waa daruuri waa wax caalamiya oo caalamku eegayo oo ummadaha jaarkeenu eegayaan oo dawladaha ayna daneynaya eegayaan oo inaga qarannimadeena wax taro ah inaan doorasho galno 15 sanadood bay fadhiyeen damiirkooda iyo aqligooda waxa uu siin waayay xeerkan idinka ayuu idin qoseeyaa ama wax ka bedel ama wax ku dara labadaba xaq bay u leeyihiin inay wax ka bedelaan ama wax ku daraan inay halkiisa u daayaan oo codayaan labadaba xaq bay u leeyihiin ma golo baarlamaan oo kale oo Soomaaliland leeyahay baa jiro loo soo gudbinaya xeerar cidda xeerka sameynaysa ee wax ka bedelaysa ama wax ku daraysa waa iyaga aynu dooranay nimankii waaweynaa ee aynu ugu talagalnay inay wax u qabtaan waxay noqdeen raashin cun biidhar bay noqdeen sida imika muuqata waa raashin cun baa la oran karaa waa raashin cun in xildhibaan loogu yeedho maaha shalay bay lahayn golayaasha deegaanka in xildhibaan loogu yeedhin waxaan leeyahay dadweynaha reer Soomaaliland maanta yaan loogu yeedhin magaca xildhibaan qaran yaan loogu yeedhin waayo waa xildhibaan ceebays nin waliba ujeedada ugu weyn ee uu leeyahay waxa weeyaan inuu meesha sii fadhiyo 15 sanadoodna uu fadhiyay damiirkiisu waxa uu siin waayay war meeshan adigu ma lihide dad adigoo kala ah baa doorasho doonaya waa la soo doortay waqtigaygu dhamaaday xildhibaan baan ahay waxaan jeclahay inay doorasho dhacdo waxaan jeclahay in meesha la yimaado haddii wax lagu darayo iyo haddii wax laga dhimayaba iyaga ayay ahayd shaqadooda inay qabtaan hawshaas cidda loo doortayna waa iyaga gobollada cidda kala taqaana waa iyaga ka yimid baahiyaha gobollada ka jira cidda taqaana waa iyaga ciddii xeerar ka samayn lahayd wax lagu doorto waa iyaga ciddii xeerkooda wax lagu dooranayo iyaga lagu dooranayo samayn lahayd waa iyaga ma waxay arkayaan $2,000 ee mushaarka loo siinayo ayaa u muuqda oo danihii ummadda loo tiiriyay maanta waxa weeyaan waajibaadka dadweynaha reer Soomaaliland hor yaalla nimanka waa in lagu dareero ma hasan si caadi ah haday dawladdu ka xishoonayso waxaan idinka xishoonayn dadkii shalay meesha idinkeena baan dooranay ayaan idinka yeeleen maanta doorashay dadku doonayaan ninna meesha malaha meesha ummad bay ka dhaxaysaa waxaan u sheegayaa xildhibaanada in nin waliba nin ka wanaagsan uu berito ima doono dalkii dadka u shaqeeya oo la jecelo u leh dalkan iyo dadkan laakiin iyaga maanta wax la jecelaha iyo wax dana iyo wax daloo ay daneynayaan midna ma jirto waad arkaysaa inay ka shaqeynayaan waliba fidmooyin bay ka shaqeynayaan inta gobolladii la tago ayaa ragga qaarkii ka qudbadeynayaan damiirkooda wuxuu siiyay inay gobollada qaarkood intay tagaan inay ka qudbadayaan ay hadlaan waliba oo intay meel soo istaagaan ay yiraahdaan anigu ma aqbalayo maxaan aqbalay kursiga waa lagu leeyahay berrito rag baa soo fadhiisan doona inta adigu aad qabatay 10keed qaban doona xuquuq ahaan adiga ka mudan kaaga la xajacla badan qarankan laakiin haddii aad adigu noqotay raashin cun $2,000 ee mushaarka uun eeganaya nin kaliya oo gobolkiisii wax ka qabtay ama deegaankiisii hal nin baan soo qaadan karaa oon oran karaa ninkaasi run ahaantii waa nin damiirkiisu aad u shaqeeyo waa ninka lagu dhahay xildhibaan nacnac ninkaasi wuu shaqeeyaa ninkii xildhibaanka isaguna la oran jiray Cali Marreexaan wuu shaqeyn jiray isaguna deegaankiisa iyo dadkiisa wuu shaqeyn jiray gaari yargee wax yaro kala gee waxaan kala qabo ragga waaweyn halka ka qudbadeynay waliba shirgudoonka baarlamaanka nin kaliya oo waxaan ku yiri deegaankiisii intuu tagay irbad caaradeed geliyay wuxuu geliyay dadka ma jiro waxaana ay soo haystaan rag wanaagsan oo la jecel yahay dadku way idin naceen muddo dheer baad dadka soo fadhideen waar xishooda oo waxa la idin soo gudbiyay ama wax ku dara ama wax ka dhima ama halkiisa u daayay xaq baad u leedin inta xaq bay u leeyiin waxa weeyaan taariikhdaana idin xusi doonto waxaad noqoteen
annagu wax idin odhan mayna xildhibaanaadtiin. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.